wiilkii wuxuu yidhi markii aan arkay baasaboorka wuxuu ahaa baasaboor kuweyti ah laakiin halkan ayay masiibadu ka bilaabatay waxaan furay baasaboorka si aan u eego sawirka iyo magaca ku qoran sawirka ku dhex jira baasaboorka ma ahayn sawirkayga magaca ku qoran baasaboorka ma ahayn magacayga 7 sano ayaan u xidhnaa qof kale dembigiis 7 sano ayaan u rafaadayey qof kale magaciis iyo sawirkiis wiilkii aad ayuu u yaabay wuxuu is yidhi malaha dadkani baasaboorkaygii ayay lumiyeen oo mid kale ayay isiiyeen assalaamu calaykum soo dhowaada asxaabta qaaliga ah magacaygu waa odaygeedii halkaa naga daawanaysaan waa maaweelo janaal maanta waxaan idiin hayaa qiso run ah oo qof kasta oo qalbi leh ka oysiinaysa waa sheeko naxdin iyo xanuun badan oo ku dhacday wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka kuweyt wiilkan oo dadiisu u dhaxaysay 28 ilaa 29 sano wuxuu sannadkii 2000 ku jiray diyaar garowgii ugu dambeeyey ee arooskiisa qof kasta oo guur qorsheeyey wuu garan karaa mashquulka walwalka iyo rajada weyn ee xilligaas la leeyahay hase yeeshee qadartu waxay qorshaysay wax ka duwan wixii uu isagu rajaynayay 4 maalmood oo qura ayaa ka hadsan maalintii arooskiisa isagoo gaadhi wata oo ay wada socdaan seedigiisa oo ah gabadha uu guursanayo walaalkeed ayay wax walba isbeddeleen waxay ku jireen sheeko iyo falanqayn ku saabsan habaynta arooska iyo tafaasiisha u dhiman iyagoo aad u faraxsan abaara 10kii fiidnimo xilli habeen ah ayay soo mareen degmada bayaan ee dalka kuweyt waxay ku dhex dhaceen barkoontarool oo ay joogaan ciidanka ammaanka wiilku si caadi ah ayuu u istaagay maadaama uusan wax dembi ah lahayn wax dhib ahna uusan dareemayn askartii ayaa u timid waxayna ka dalbadeen inuu soo saaro aqoonsigiisa idga iyo aqoonsiga ninka la socda ee seedigiis ah isagoo kalsooni qaba ayuu gacanta u taagay boorsadiisa si uu aqoonsiyada u dhiibo si kalsooni leh ayuu u dhiibay aqoonsigiisii iyo kii seedigiis mid ka mid ah saraakiishii booliska ayaa ka qaatay wuxuuna ula laabtay gaadhigii dhexdiisa si uu u soo hubiyo magacyadooda daqiiqado kadib sarkaalkii ayaa dib u soo laabtay wuxuuna wiilkii arooska ahaa ku yidhi ma adigaa hebel wiilkii ayaa isagoo iska naxsan ku jawaabay haa waa aniga sarkaalkii ayaa markaas ku yidhi fadlan gaadhiga ka soo deg wiilkii oo yaaban ayaa weydiiyey khayr ma jira sarkaalkow maxaa dhacay sarkaalkii ayaa ugu jawaabay iska soo deg uun kadib ayaan kaaga sheegi doonaa wax kasta isla markii uu wiilkii cagta dhulka dhigay askari kale oo taagnaa ayaa isla markiiba gacmaha ka xidhay isagoo naxsan oo xaaladdu ku cusub tahay ayuu isweydiiyey maxaa dhacay seedigii oo argagaxsan ayaa isku dayay inuu hadlo laakiin askartii ayaa ku qaylisay waxay dhaheen adigu dibadda uga bax arrintan haddii aad rabto qareen ama looyar u soo qabo laakiin hadda naga fogaaw wiilkii yaraa ee arooska ahaa isagoo gacmaha ka xidhan oo aan waxba fahamsanayn ayay askartu ku tuureen gaadhiga booliska waxay si toos ah u geeyeen xafiiska fulinta xukuumadda idaaradda tanfiid al axkaam wiilkii xaaladdu waa ku xumaatay wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo daqiiqad qud ah ii dhegaysta maxaan sameeyey ii sheega waxa aan galabsaday laakiin nasiib darro cidna uma jawaabin cidna uma sharrixin waxa socda isagoo habeenkaas faraxsan aroosna isu diyaarinaya ayay si lama filaan ah ugu dhex xidheen qol mugdi ah isagoo aan garanayn dembiga uu galay iyo sababta loo xidhay midna cidna uma garaabayso cidna uma sharaxayso dembigiisa wiilkii wuxuu bilaabay inuu qayliyo isagoo ku dhex jira xafiiskii fulinta xukuumadda wuxuu bilaabay inuu naftii ka samro isagoo isku dayaya inuu iska caabiyo askarta waayo wuxuu dareemayay in si weyn looga gardaran yahay qayladiisii iyo buuqiisii ayaa isqabsaday dhismihii oo dhan markaas ayaa waxaa soo degay maamulihii guud ee xafiiska fulinta xukuumadda kadib markii uu maqlay buuqa iyo sawaxanka weyn ee ka dhex dhacayay xafiiskiisa maamulihii ayaa weydiiyey maxaa dhacay maxaad u qaylinaysaa wiilkii ayaa isagoo neefaysanayo oo ilmo ka soo daadanayso ku yidhi walaalow anigu ma ogi waxa aan halkan u joogo iyo dembiga aan galay midna maamulihii ayaa isagoo yaaban yidhi sidee maxay tahay qisadaadu markaas ayuu amar ku bixiyey in mar kale kombiyuutarka lagu hubiyo magaciisa iyo sababta loo xidhay maamulihii ayaa eegay shaashadda kombiyuutarka kadibna isagoo wiilkii indhaha ku haraabinaya ayuu ku yidhi saaxiibow adiga waxaa kugu dhacay xukun xabsi ah oo gaaraya 7 sano wiilkii hadalkaas wuxuu ku noqday sidii midii wadnaha looga muday isagoo naxdin darteed gariiraya ayuu yidhi maxaan sameeyey sidee wax u jiraan maamulihii oo u malaynaya in wiilku uu isyeelyeelayo ayaa ku yidhi ma waxaad iska dhigaysaa qof aan waxba ogayn 5 sano oo ka mid ah xukunka waxaa lagugu xukumay isticmaalka daroogada maandooriyaha 2 sano oo kalena waxaa lagugu daray kadib markii aad gashay hoydad leeyihiin markii lagu soo qabtayna aad ka baxsatay gacanta ciidanka ammaanka wiilkii arooska ahaa dunidii ayaa ku soo yaraatay isagu ma aha nin daroogo isticmaala weligiisana xabsi ma arkin askarina kama baxsan sidee ayay tani ku dhacday wiilkii ayaa bilaabay inuu qayliyo oo uu ilmeeyo isagoon isxajin karin wuxuu ku celcelinayay ilaahay ayaan ku dhaartay inaan bari ka ahay eedaan hubaal khaladaad ayaa jira fadlan i maqla laakiin nasiib darro wiilku weli ma uusan fahmin xajmiga masiibada ku habsatay sidee bay xukun noocan oo kale ah ugu soo dhici karaa qof aan weligii dembigelin aan lahayn wax diiwaanka dembiyada ah sawaabiq dhibna aan cidna u geysan halkaas ayayna dhibaatada dhabta ahi ka bilaabatay
xitaa haddii aad tahay qof aan waxba galabsan, marka uu nidaamka wasaaradda arrimaha gudaha iyo laamaha ammaanku kuu diiwaangeliyaan inaad dambiile tahay, hadalkaagana wax macno ah uma laha iyaga. Sababtoo ah askari kasta oo ay soo qabtaan, wuxuu u sheegaa isla hadalkaas, anigu waxba ma galabsan. Anigu waxba ma galabsan. Waa erayada uu ku celcelinayo, laakiin askartu ma aha garsoorayaal go'aan gaari kara. Shaqadoodu waa kaliya inay fuliyaan waxa nidaamka ugu jira. Waxay ku yidhaahdeen hadalkan maxkamadda horteeda ka sheeg, garsooraha ayaa kala saari kara ciddii dambiile ah iyo ciddii bari ah marka uu eego cadaymaha, laakiin annaga waxaan raacaynaa waxa kombiyuutarka noogu jira. Askartu been ma aysan sheegayn, nidaamka ayaana ku qornaa sidaas. Isla markiiba intaan waaguba baryin, wiilkii arooska ahaa waxaa laga kaxayay xafiiskii fulinta xukuumadda. Xilli aroor hore ah, isagoo weli naxsan, ayuu wiilkii is arkay isagoo dhex jooga xabsiga dhexe, qolka loogu talagalay maxaabiista. Halkii uu filayay inuu ku jiro qolkiisii arooska ee quruxda badnaa, wuxuu hadda dhex jiifaa xabsi dhexdiis, isagoo ku hareeraysan dambiilayaal iyo dad aanu aqoon. Wiilkii waxaa ku dhacay naxdin iyo isku dhex yaac nafsi ah oo uusan weligii soo marin. Waxay u ahayd markii ugu horraysay ee uu cagta dhigo xabsi. Wejigiisa iyo dhaqankiisa waxaa ka muuqatay inuusan ahayn dadka looga bartay xabsiyada iyo dembiyada. Markii la geeyey qolka maxaabiista, nolosha wiilkaas way isbeddeshay. Bil iyo badh 45 maalmood ayuu wiilkii ku jiray xabsiga dhexdiisa. Maalin kasta wuxuu fadhiisan jiray albaabka hore ee qolka maxaabiista, isagoo eegaya dibadda, rajaynayana in maalin uun la dhihi doono, khalad ayaa dhacay, waad iska bixi kartaa. Ma qiyaasi kartaa? Arooskii uu isku diyaarinayay, qoyskiisii iyo noloshiisii oo dhan waxay ku dhex lumeen darbiga xabsiga dhexdiisa, isagoo aan garanayn sababta. Wiilkii wuu diiday inuu gudaha u sii galo qolka maxaabiista, wuxuuna ku dhegay albaabka agtiisa. Ma rumaysni waxa ku dhacay. Ma qiyaasi kartaan sababta uu maalin kasta albaabka u fadhiyi jiray? Wuxuu aaminsanaa in ilbiriqsi kasta uu soo geli karo mid ka mid ah askarta ammaanka, isagoo u sheegaya, ma adigaa hebel? Aad ayaan uga xunahay, khalad baa dhacay, raali naga ahaw, hadda waad iska bixi kartaa oo gurigaagii ayaad aadi kartaa. Bil iyo badh ayuu xaaladaas ku jiray. Mar kasta oo askari uu soo galo qolka si uu cunto u keeno ama amaro u bixiyo, wiilkan wadnaha ayaa la boodi jiray. Wuxuu moodayay in loo yimid si looga raaligeliyo dulmiga loo geystay, loona sii daayo. Isagu ma uusan dareemayn inuu yahay maxbus, ee wuxuu isu arkayay qof si qalad ah loo xidhay oo hadda la sii dayn rabo. Laakiin 45 maalmood ayaa soo maray iyadoo cidna aysan raaligelin u keenin, cidna aysan u sheegin inuu xor yahay. Habeen kasta oo dhaafa, rajadiisii arooska iyo noloshiisii waxay noqonayeen mid sii fogaanaysa. Hase yeeshee, rajadii wiilka ee ahayd in maalin ama labo lagu sii daayo, waxay noqotay dhalanteed. Toddobaadyadii waxay isku beddeleen maalmooyin, dhibaatadii iyo rafaadkiina waxay gudaha xabsiga ugu jiitamaayeen sannaddan. Sannaddan oo noloshiisa ka mid ah ayaa ku dhex lumay derbiyada xabsiga isagoo aan dambi lahayn. Ma isweydiisay, ma wiilka ayaa ismoodsiinaya inuu bari yahay, mise runtii waa laga gardaran yahay? Dhegayso xaqiiqada dhabta ah ee dhacday. Sannadkaas wuxuu ku dhammaaday isagoo qasab ku jooga xabsiga, cidna ma maqlayn dacwadiisa. Wax kasta oo uu dhisayeyna way dumeen. Arooskii uu u diyaargaroobayay waa la kansalay, reerkii gabadha uu guursan lahaa way diideen inay gabadhooda siiyaan. Xitaa seedigiisii ay habeenkaas wada socdeen ee arkayay sida wiilka loo xidhay ayaa isna ka soo horjeestay. Wuxuu iska dhaadhiciyey in ninkan walaashii guursan raba uu yahay dambiile, daroogo isticmaala, islamarkaana guri dumar u dhacay kadibna booliiska ka baxsaday. Sidee ayuu markaas ugu oggolaan karaa inuu walaashiisa siiyo? Qof kasta ayaa ka fogaaday, qof kasta ayaana u arkayay dambiile khatar ah. Dadkii waxay islahaayeen, Ilaah baa idiin badbaadiyey oo ninkan dhabtiisa idiin tusay ka hor inta uusan aroos ku dhacin. Sidaas darteed, qofna uma turin. Wiilkii markii ay 3 bilood ilaa 4 bilood u dhexaysay xabsiga, wuxuu bilaabay inuu isdhiibo oo uu u hoggaansamo amarka qadarta, laakiin haddana kama quusan inuu caddeeyo runta. Wuxuu isku dayay wax kasta oo uu kari karay, wuxuu la hadlay dad magac leh, wuxuu qabsaday qareenno, looyaro, isagoo rajaynaya inuu xabsiga ka baxo. Laakiin halkan ayay masiibadu ka sii weynaatay. Xitaa qareennadii uu qabsaday, waxba ma ayan qaban karin. Markii ay baadheen faylkiisa, waxay ogaadeen in xukunka ku dhacay uu yahay mid final ah, xukun kama dambays ah. Nidaamka sharciga ah, marka xukunka lagu rido qofka uuna dhammaado dhammaan heerarkii racfaanka, way adag tahay in dib loo furo. Isaga oo aan weligiis maxkamad tegin, aan garsoore arkin, laguna xukumay dambi uusan gelin, ayay haddana albaabadii sharciga oo dhammi ka xidhmeen. Waxay u muuqatay in 7 sano uu dhammaysan doono isagoo dulman. Xaaladdu waxay gaartay meel aad u adag. Maadaama dhammaan heerarkii racfaanka maxkamadaha ay dhammaadeen, xukunkiisuna noqday mid fulintiisu waajib tahay, wiilkii wuxuu gartay inuusan haysan waddo kale oo uu ku baxsado. Wuxuu go'aansaday inuu amarka Ilaahay iska dhiibo, isagoo ku dhex jira gudaha xabsiga. Hase yeeshee, dhibaatada maskaxeed ee uu wajahayay waxay ahayd mid aan la qiyaasi karin. Bal qiyaas wiil nolosha caadiga ah ku soo koray, oo hadda ku dhex jira gacan kudhiiglayaal iyo dambiilayaal khatar ah. Maalin kasta wuxuu la kulmayay dhibaatooyin iyo iska horimaad uu kala kulmayay maxaabiista kale.
wuu la qabsan waayey nolosha xabsiga, dabeecaddiisa, hadalkiisa, iyo qaabkiisuba waxay ahaayeen kuwo ka duwan dadka deegaankaas xabsiga u bartay. Wuxuu ahaa qof ku dhex jira adduun uusan isagu lahayn, dembi uusan gelinna loogu xukumay. Maalin kasta waxay u ahayd xanuun hor leh, isagoo isweydiinaya sidee ayay tani u dhacday, goormayse runtu soo bixi doontaa. Wiilku wuxuu yidhi, waxaan xabsiga dhexdiisa ku soo maray dhibaatooyin ka baxsan qiyaasta bini'aadamka, gaar ahaan dareenka ah in xorriyadda lagaa qaado adigoo bari ah. Xabsigu ma ahayn meel uu ku habboonaa, dhex joogidda dambiilayaashuna waxay u ahayd cadaab maalinle ah. Laakiin xaaladdaas quusta ah dhexdeeda ayaa albaab rajo ah u furmatay. Xabsiga dhexdiisa waxaa ka jiray barnaamij loogu talagalay maxaabiista, qof kasta oo xifdiya Qur'aanka Kariimka ah. Waxaa laga dhimayaa muddada xabsiga ee u hartay. Wiilkii wuxuu go'aansaday inuu fursadaas ka faa'iidaysto. Wuxuu u go'ay barashada iyo xifdinta kitaabka Ilaahay, habeen iyo maalinna wuu ku dadaalay. Mucjiso rabbaani ah ayay ahayd. Wiilkii wuxuu ku guulaystay inuu Qur'aanka oo dhan xifdiyo. Dadaalkaas awgiis wuxuu si rasmi ah u galay barnaamijkii cafiska ee maxaabiista, isagoo markaan rajaynaya inuu dib u helo xorriyaddiisii laga qaaday. Dadaalkiisii xifdinta Qur'aanka ma khasaarin. 7 sano ee lagu xukumay waxaa looga dhigay 1 sano oo qura. Sannadkii markii uu u dhammaaday, wiilkii wuxuu helay xorriyaddiisii, balse waxay ahayd xorriyad xadidan. Wuxuu galay nidaamka loo yaqaano muraaqabada ama ilaalinta dambe. Taas macnaheedu waxa weeye in kasta oo uu gurigiisii joogo, haddana waxaa ku waajib ah in toddobaad kasta uu tago xafiiska booliiska si loo hubiyo inuu dalka joogo. Sidoo kale, jimce kasta waxaa laga qaadayay baadhitaan caafimaad oo la xidhiidha balwadaha, si loo xaqiijiyo inuusan dib ugu laaban isticmaalka daroogadii lagu soo eedeeyey. Waxa kale oo shardi looga dhigay in muddadaas ilaalinta ah uusan gelin dembi kale. Haddii kale, dib ayaa loogu celinayaa xabsiga si uu u dhammaysto 6 sano ee kale. Wiilkii wuxuu soo neefsaday hawo xorriyad ah, laakiin noloshiisii hore ma ahayn mid u diyaarsan inay dib u soo dhowayso. Magaciisii waa wasakhoobay, dadkiisiiyuna way ka fogaadeen. Isagu wuu ogaa inuu bari yahay, laakiin sidee ayuu caalamka intiisa kale ugu qancin karaa? In kasta oo uu dib u helay xorriyadda jidhkiisa, haddana qalbigiisu ma helin xasilooni. Wiilku ma uusan quusan, wuxuu weli raadinayay sidii uu u caddayn lahaa bari ahaanshihiisa, laakiin bulshadu ma aha mid naxariis leh. Wuxuu yidhi, waxaa iga fogaaday asxaabtaydii igu dhowayd. Xitaa dadkii aan isku dhowayn waxay bilaabeen inay iga dhuuntaan ama ay i weecdaan marka ay i arkaan. Sababtu waxay ahayd magaca xun ee loo mariyey, qof walba wuxuu maqlay inuu yahay nin daroogada isticmaala, guri dumar ahna u dhacay. Yaad u malaynaysaa inuu rabo inuu saaxiib la noqdo qof noocaas ah? Cadaadiska bulshada ayaa ku batay, ilaa uu gaadhay heer uu ka xishoodo runta dhibka leh. Markii asxaabtiisa ay sheekadiisa maqaleen oo ay weydiiyeen halka uu muddada sannadka ah ku maqnaa, wuxuu bilaabay inuu been u sheego. Wuxuu ku dhihi jiray, dibadda ayaan waxbarasho u jiray. Kaliya markii uu beentaas sheegay ayay dadkii qaar dib ugu soo laabteen. Ma qiyaasi kartaa xanuunka ay leedahay in qof bari ah uu ku qasbanaado inuu dembi kale been sheego, si uu u helo xushmad iyo saaxiibtinimo uu xaq u lahaa. Si uu bulshada u dhex galo, wiilkii wuxuu dadka ku qanciyey inuu dalka dibadda uga maqnaa waxbarasho. Maalin maalmaha ka mid ah, isaga iyo qaar ka mid ah saaxiibadiis ayay casho u baxeen. Markii ay soo laabteen iyagoo gaadhi wada saaran, waxay ku dhaceen barkoontarool oo ay joogaan ciidanka ammaanka. Isla markii aqoonsigiisa la hubiyey, askartii ayaa ku qayliyey, adigu gaadhiga ka soo deg. Waxaa lagu soo saaray wadada dhexdeeda, waxaana lagu bilaabay baadhis aad u adag oo dharka iyo jidhka ah, maadaama uu ahaa qof xabsiga laga soo daayey oo weli ku jira muraaqabo, isla markaana dembiga loo haystay uu ahaa daroogo. Askari kasta oo wadada ku arka wuxuu ula dhaqmayay sidii dembiile khatar ah. Waxay u baadhayeen si naxariis darro ah, iyagoo raadinaya inay daroogo ka helaan iyo in kale. Saaxiibadiisii la socdeen waxay u eegayeen si yaab leh. Beentii uu u sheegay ee ahayd waxbarasho ayaan u maqnaa, waxay ku dhowaatay inay halkaas ku bururto. Ma qiyaasi kartaa xanuunka ay leedahay in asxaabtaada horteeda lagugu bahdilo, laguna ugu baaro dembi aadan weligaa gelin? Xaaladdu waxay ahayd mid aad u adag, haddii xataa wax yar oo maandooriye ah layga heli lahaa. 6 sano ee kale ee xabsiga ayaan si toos ah ugu laaban lahaa. Saaxiibaday markii ay arkeen baadhista baan ee laygu hayo iyo habdhaqanka askarta, way naxeen. Waxay bilaabeen inay isweydiiyaan, maxaa dhacay? Ninkani ma aha miyaa kii noo sheegayay inuu waxbarasho u maqnaa? Halkaas ayay beentii ku fashilantay. Waxay ogaadeen xaqiiqadii qadhaadheed ee ahayd inuu xidhnaa. In kasta oo u dhaartay uu misena ku celceliyey inuu bari yahay oo si khaldan laygu xidhay, haddana cidna ma rumaysan. Mid ayay uga fogaadeen, iyagoo u qaatay inuu yahay dembiile beenlow ah. Wiilku wuxuu galay nolol godoon ah. Ma jiro xanuun ka weyn in lagaa shakiyo adigoo bari ah. Saaxiibadaadiina ay kugu dhibsadaan dembi aadan gelin. Waxay u ahayd masiibo bulsho iyo mid nafsi ah oo aan caadi ahayn. Dunidii oo dhan ayaa ku soo koobantay, isagoo xaq u leh inuu dhex lugeeyo dadka, balse laga dhigay qof laga cararo. Sidan ayay noloshu ku socotay muddo 6 sano ah. 6 sano oo uu ka gonaa shaqadii uu xaqa u lahaa, 6 sano oo uu ka gonaa xidhiidhkii bulshada, iyo 6 sano oo uu ahaa maxbuus inkastoo uu dibadda joogay. In kasta oo uu xabsiga jidh ahaan uga soo baxay sannad kadib, haddana wuxuu ahaa maxbuus ay bulshadu silsilado ku xidhay.
laakiin markii ay 6dii sano dhammaadeen wuxuu tagay xafiiska fulinta xukuumadda idaaradda tanfiid si uu u dhammaystiro warqadihiisa muraaqabada. Halkaas ayayna ku qabsatay naxdintii ugu weynayd ee noloshiisa. Halkan ka dhigayso wax kasta oo aan soo sheegnay, dhibkii xabsiga, lumintii arooska, iyo saaxiibadu inay ka fogaadeen, intaas oo dhammi weli ma aha sheekadii dhabta ahayd. Sheekadii dhabta ahayd hadda ayay bilaabmaysaa. Waxa uu wiilku ku arkay xafiiska maanta waa wax ka yaab badan wax kasta oo aad malayn kartid. Waxa aad soo maqasheen intaas oo dhan waxay ahaayeen hordhac uun. 7 sano ee noloshiisa laga lumay way dhammaadeen. Sannad xabsi ah iyo 6 sano oo uu ku jiray muraaqabo iyo baadhitaan joogto ah. Wiilkii wuxuu galay xafiiska fulinta xukuumadda idaaradda tanfiid isagoo raba hal shay oo qura, warqadda buraashada baraad aldimah, si uu ugu dambayn magaciisa uga nadiifiyo nidaamka, uuna u dareemo inuu yahay muwaadin xor ah oo aan dayn lagu lahayn. Markii ay u dhammaystireen waraaqihiisii, ayuu codsaday inuu la kulmo maamulaha. Isagoo isxajinaya dareen weynuna ka muuqdo, ayuu hortaagay maamulaha wuxuuna ku yidhi, mudane, hadda waxaan dhammaystay xukunkii laygu riday oo dhan, laakiin ma ku weydiin karaa hal su'aal oo muhiim ah. Maamulihii ayaa eegay wiilka isagoo arkaya qof 7 sano oo noloshiisa ah ay ka muuqato wejigiisa, wuxuuna ku yidhi, haa, fadlan soo gudbi, maxaad rabtaa inaad ogaato? Wiilkii ayaa isagoo codkiisu uu naxariis iyo xanuun ka buuxo ku yidhi, mudane, waxaan kaa codsanayaa hal shay oo qura, fadlan i dhegayso. Maamulihii ayaa eegay, isagoo weydiiyey, maxaad rabtaa? Wiilkii ayaa isagoo ilmadiisu soo dhowdahay ku yidhi, Ilaahay ayaan ku dhaartay, hadda waxaan dhammaystay xukunkii aad igu rideen, haddana waxba iguma lihi. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego hal xaqiiqo ah. Ilaah baan ku dhaartay inaanan weligay gelin dembiyadaas aan u xidhnaa. Ilaah baan ku dhaartay inaad khalad weyn ka gasheen naftayda. Maamulihii intii uu u naxariisan lahaa, ayuu si kulul ugu qayliyey, war naga tag. Dibadda uga bax xafiiska, hadal badanaa. Qabso waraaqahaaga oo gurigaaga iska aad. Wejigaaga naga qari, haddaba naga bax. Maamulihii ayaa hadalkiisii sii raaciyey isagoo wiilkii bahdilaya, halkan dib ha ugu soo laaban. Anagu waan naqaanaa sheekooyinka aad qabsataan ee aad isaga dhigtaan dad bari ah. Waan naqaanaa qabqabashada dadka daroogada isticmaala iyo beentooda. Wiilkii wuxuu yidhi, waan iska aamusay. Maxaan samayn karaa? 7 sano ayaan u qaylinayay si uu qof ii rumaysto, balse cidna ma i maqal. Wuxuu markaas aaday xafiiskii lagula kala wareegayay agabka ama hantida, alcuhda, si uu u saxiixo waraaqaha u dambeeya. Wiilkii wuxuu ku yidhi askartii xafiiska joogtay, anigu wax hanti ah oo layga hayo ma jirto. Maadaama habeenkii la qabanayay uusan waxba wadan. Laakiin askarigii ayaa ugu jawaabay si la yaab leh, maya, magacaaga hanti baa ku diiwaangashan. Kaalay halkan, buuxi foomkan, saxiixna ku dhufo, kadib ayaan kuu soo bixinaynaa baqshada ay hantidaadu ku jirto. Waxaa baqshadii hantida u dhiibtay gabadh ka mid ah shaqaalaha xafiiska. Waa agabkii laga qaaday ninkii dembiga galay 7 sano ka hor. Wiilkii ayaa yidhi, markii aan furay baqshadda, waxaan ku dhex arkay waxyaabo aanan weligay hore u arkin. Waxaan ka soo saaray furo baabuur, waxaan ka soo saaray boorso, wallet, waxaana ka soo saaray baasaboor. Wiilkii wuxuu yidhi, markii aan arkay baasaboorka, wuxuu ahaa baasaboor Kuwayti ah. Laakiin halkan ayay masiibadu ka bilaabatay. Waxaan furay baasaboorka si aan u eego sawirka iyo magaca ku qoran. Sawirka ku dhex jira baasaboorka ma ahayn sawirkayga. Magaca ku qoran baasaboorka ma ahayn magacayga. 7 sano ayaan u xidhnaa qof kale dembigiis, 7 sano ayaan u rafaadayay qof kale magaciis iyo sawirkiis. Wiilkii aad ayuu u yaabay. Wuxuu is yidhi, malaha dadkani baasaboorkaygii ayay lumiyeen oo mid kale ayay isiiyeen. Isagoo aan rumaysan karin waxa uu arkayo, ayuu gabadhii shaqaalaha ahayd ee foomamka buuxinaysay ku yidhi, fadlan, ma arki karaa baasaboorka. Gabadhii ayaa si degan ugu jawaabtay, sug xoogaa, aan dhammaystiro saxiixyada iyo codsiga, kadib ayaan kuu dhiibayaa hantidaada oo dhan. Laakiin wiilkii dulqaadkii waa ka dhammaaday. 7 sano oo dulmi ah kadib, ilbidhiqsi kasta wuxuu la ahaa sannad. Maya, ilaah baan kugu dhaar ii dhiib hadda, ma sugi karo, ayuu yidhi. Gabadhii ayaa la yaabtay oo tiri, halkan ka eeg, waa baasaboorkaagii uun ee maxaa kugu dhacay? Halkaas ayay masiibadu ka dhex qaraxday. Wiilkii ayaa baasaboorkii dafay, dabadeedna furay bogga hore. Markii uu eegay sawirka ku dhex jira, indhihiisu waxay qaban waayeen waxa ay arkayeen. Sawirka ku dhex jira baasaboorka ma ahayn isaga. Ma ahayn wejigii uu muraayada ku arki jiray maalin kasta. Hase yeeshee, waxa ka sii daran ayaa yimid. Markii uu eegay magaca ku qoran baasaboorka, wuxuu arkay magac qof kale, laakiin nambarka aqoonsiga, ifil ID-ga, ee baasaboorkaas ku qoran wuxuu ahaa asaga. Qof kale ayaa isticmaalayay magaciisa iyo aqoonsigiisa. Dembigii uu galayna isaga ayaa loo xidhay. Wiilkii ayaa indhaha ku gubay, baasaboorkii uu gacanta ku hayay. Wuxuu eegay magaca, waa magaciisii oo saddexan. Wuxuu eegay nambarka aqoonsiga, ifil ID-ga, waa isla nambarkiisii. Xogta oo dhammi waxay ahayd tiisii oo sax ah. Laakiin markii uu eegay sawirka, halkaasay adduunyadii ku duntay. Sawirka ku dhex jiray baasaboorka wuxuu ahaa sawirka nin kale oo uusan weligii arkin. Halkaas ayuu wiilkii ku fahmay sheekada oo dhan iyo dhibka 7 sano la soo jiitamayay. Qof kale ayaa isticmaalayay magaciisa iyo aqoonsigiisa, isagoo sawirkiisa ku dhejiyey baasaboorka wiilkan. Dembiyadii oo dhan ka dhex ganacsiga daroogada, u dhaca guryaha,
iyo cararkii booliska, dhammaantood waxaa galay ninka sawirkiisu ku jiro baasaboorka. Laakiin nidaamka dowladda sistemka waxaa ugu diiwaangashnaa magaca iyo aqoonsiga wiilka bariga ah. 7 sano ayuu u dhibtooday dambiyo uusan gelin, isagoo loo haystay qof kale oo dambiile ah oo magaciisa xaday. Wiilkii ayaa halkaas ku gubtay, waxaana ka soo baxay qaylo iyo oohin uu 7 sano ku caburinayay laabtiisa. Shaqaalihii xafiiska ayaa ku soo xoomay iyagoo yaaban. Gabadhii hantida u dhiibaysay ayaa si naxariis leh u weydiisay, maxaa kugu dhacay? Maxaa jira? Ma wax baa kaa dhiman? Isagoo ilmadiisu ay dhabannada qoynayaan, ayuu baasaboorkii kor u qaaday oo yidhi, Kani waa xukunkii bari ahaanshahayga. Kani waa caddayntii aan 7 sano raadinayay. Gabadhii oo yaaban ayaa tidhi, maxaa ula jeedaa waa xukunkii bari ahaanshahayga? Wiilkii ayaa isagoo gariiraya ku jawaabay, ninkani waa ninka i xidhay. Isagaa dembiga galay, anigana la ii xidhay. 7 sano ayaad ii xirteen dembi uu ninkani galay. Ilaah baan ku dhaartay inaanan anigu ahayn ninka sawirkiisu halkan ku jiro. Magaca waa kaygii, aqoonsiga waa kaygii, laakiin sawirka iyo ninka dembiga galay waa kan. Gabadhii shaqaalaha ahayd ayaa naxday, wayna rumaysan weyday waxay maqlayso. Waxay eegtay wejiga wiilka bariga ah ee hortaagan iyo sawirka ku dhex jira baasaboorka ee dambiilaha ahaa. Runtiina waxay ahaayeen 2 qof oo aad u kala duwan. Wiilkii isagoo ooynaya ayuu baasaboorkii u geeyey madaxii qaybta. Madaxii qaybtu markii uu indhaha saaray baasaboorka, wuu naxay oo kursigii ayuu ka kacay. Isla markiiba waxaa wiilkii loo kaxayey xafiiska xeer ilaalinta. Markii ay xeer ilaaliyayaashii baadheen baasaboorka, waxay ogaadeen wax laga naxo. Baasaboorku wuxuu ahaa mid feeg ah. Sawirkii rasmiga ahaa ee wiilka arooska ahaa waa laga fiiqay, waxaana si farsamaysan loogu dhejiyey sawirka nin kale oo dambiile ah. Xeer ilaaliyihii ayaa madaxa qabsaday iyaga oo yaaban. Xitaa isaga ma uusan ogayn in nidaamka lagu khiyaaneeyey sawir la beddelay. Wuxuu eegay wiilkii bariga ahaa ee 7 sano u dhibtooday dembi uusan gelin, wuxuuna ku yidhi isagoo ka xun, subxaanallah, waxaad dhammaysatay xukunkii oo dhan adigoo bari ah. Adduunyadii ayaa rogmatay maanta. Sidee ayay tani u dhacday? Wiilkii ayaa isagoo qalbigiisu dhiigayo xeer ilaaliyihii ku yidhi, mudane, 7 sano ayaan dunida oo dhan ka baryayay inay i dhegaystaan. Sannadan ayaan xabsi ku jiray, 6 sano oo kalena waxaan ahaa maxbuus dibadda jooga oo la ilaaliyo. Ma jiro qof aanan u ooyin oo aanan u sheegin inaan bari ahay, laakiin qofna ma i rumaysan. Xeer ilaaliyihii oo ay wejigiisa ka muuqato naxdin iyo qoomamo, ayaa amray in degdeg loo furo kiis cusub. Waxaa la bilaabay in la raadiyo ninkii dhabta ahaa ee dembiga galay, ee sawirkiisu ku dhex jiray baasaboorka. Hase yeeshee, halkan ayay ku jirtaa nuxurka sheekada oo dhan. Subxaanallah, dunidu waa goob wareegta. Waxaad mooddaa in qadarku isku keenay 2 sheeko oo kala duwan. Ninka sawirkiisu ku jiro baasaboorka ee 7 sano nolosha ka lumay wiilkan bariga ah, isna sheekadiisu meel kale ayay ku qornayd. Haddaba, waa kuma ninka nolosha ka gubay wiilkaas arooska ahaa? Magaciisu waa Cafaan Cawiid Cafaan. Waa nin aan haysan dhalasho oo ku noolaa dalka Kuwait. Sheekada Cafaan waxay dib ugu laabanaysaa sannadkii 1999. Cafaan wuxuu xidhiidh qarsoodi ah la lahaa gabadh. Maalin maalmaha ka mid ah, isaga oo gabadhaas ballan kula leh, ayuu u galay gurigooda si qarsoodi ah. Isagu wuxuu u qabay inuu nabad qabo, laakiin ma uusan ogayn in indho kale ay eegayeen. Halkaas waxaa ku qabtay oo gacanta ku dhigay walaalihii gabadha. Waxay ogaadeen inuu ninkani gurigooda u soo dhacay si uu walaashood ula kulmo. Cafaan, ninkaas aan damiirka lahayn, wuxuu ahaa bilowga masiibadii 7 sano nolosha ka baabiisay wiilka bariga ah. Walaalihii gabadha markii ay qabteen Cafaan, kuma ay dayn inay qabtaan oo kaliya. Waxay u garaaceen si naxariis darro ah, waxayna gaadhsiiyeen dhaawacyo aad u daran. Run ahaantii way mudnaayeen inay saas u galaan, ayaa laga yaabaa inaad istiraahdo, waayo wuxuu ku soo xadgudbay sharaftooda. Cafaan halkaas ayaa lagu burburiyey, jidhkiisa oo dhan waxaa ka soo gaadhay nabaro iyo jabniin xooggan, ilaa uu miyir beelay oo koomo galay. Isla markiiba waxaa goobta soo gaadhay ciidanka booliska iyo ambalaaska si ay u badbaadiyaan ninkan dhimashada qarka u saaran. Waxaa loo qaaday isbitaalka Farwaaniya isagoo xaaladiisu ay aad u liidato. Laakiin halkan ayaa ah meesha uu Cafaan ku dhigay dabin weyn. Isagoo og in dembigiisu uu yahay mid aad u culus, uuna galay guri dad leeyihiin, ayuu go'aansaday inuu magac kale isticmaalo. Sidee ayuuse ku helay magaca wiilka kale? Markii Cafaan la geeyey isbitaalka, isagoo miyirla oo dhiig baxaya, boolisku waxay bilaabeen inay baadhid ku sameeyaan dharkiisa si ay u ogaadaan qofka uu yahay iyo magaciisa. Waxay ka helaan baasaboor, laakiin kani ma ahayn baasaboorkiisa rasmiga ah. Wuxuu ahaa baasaboorkii wiilkii arooska ahaa, ee maskiinka ahaa. Cafaan wuxuu ahaa tuug xirfad leh, wuxuu hore u soo xaday baasaboorka wiilkaas, isagoo si farsamaysan u saaray sawirkiisa, laakiin u daayay magacii iyo xogta kale ee wiilka bariga ahaa. Maadaama wakhtigaas baasabooradu aysan ahayn kuwa casri ah oo elektroonik ah, sawirka oo la beddelo waxay ahayd wax sahlan oo qof kasta lagu siri karo. Isbitaalkii waxay ku diiwaangeliyeen magaca iyo xogta ku qoran baasaboorka, waxayna u qaateen in ninka dhiigga ku dhex jira uu yahay wiilkii arooska ahaa. Halkaas ayay ka bilaabatay musiibadii, dembigii Cafaan galay, magaciisii waxaa lagu qoray wiil kale oo gurigiisa iska hurda, diyaarinayana arooskiisa.
Dunidii oo dhan ayaa isbeddeshay iyadoo wiilkaas maskiinka ah uusan waxba ogayn. Halkan ayay arrintu ka sii dartay. Boolisku waxay diiwaangeliyeen xogta Affan iyagoo u haysta inuu yahay wiilkii arooska ahaa. Maadaama uu dhaawacu aad u darnaa, waxaa lagu qasbay inuu saxeexo waraaqaha oggolaanshaha qaliinka. Affan isagoo magaca wiilka kale isticmaalaya ayuu saxiixay waraaqahaas, waxaana lagu sameeyey 4 ilaa 5 qaliin oo waaweyn si loo badbaadiyo noloshiisa. Laakiin intii lagu guda jiray qaliinada iyo baadhitaannada caafimaadka, ayaa waxaa soo baxday naxdin kale oo aan la filayn. Baadhitaankii dhiigga ee laga qaaday ninkaas Affan ah ayaa muujiyey inuu saaxiib dhow la yahay maandooriyaha. Dhiiggiisa waxaa laga helay xaddi badan oo xashiish ah, herowiin ah iyo kookayiin ah. Isagoo magaca wiilka bariga ah wata ayaa loo diiwaangeliyey inuu yahay qof balwad leh oo daroogo isticmaala. Halkaasay ka dhalatay eedaysanaha ah nin gurigii dad leeyihiin u dhacay, isla markaana ah daroogayste. Magacaas wasakhaysan oo dhan waxaa dhabarka u ritay wiilkii miskiinka ahaa ee arooska u diyaargaroobayay, isagoo aan xitaa ogayn in baasaboorkiisii la xaday loo isticmaalay dembiyadan foosha xun. Ninkii Affan ahaa ee dembiilaha ahaa waa la burburiyey, laakiin dhibka ugu weyn wuxuu saarnaa magaca uu siday. Boolisku waxay markiiba ku fureen 2 kiis oo aad u culus. Kiiska koowaad wuxuu ahaa u dhac guri dad leeyihiin, kiiska labaadna wuxuu ahaa isticmaalka iyo haysashada maandooriyaha. Markii ay jeebadiisa baadheen, waxay ka heleen haraaga maandooriyaha herowiin iyo xashiish ah. Wax kasta waxay ku qornaayeen magaca wiilka arooska ahaa. Kadib markii Affan qaliinadii lagu sameeyey, waxaa la dhigay qol ka mid ah isbitaalka, waxaana la duldhigay ilaalo ka kooban 2 askari oo boolis ah. Laakiin halkan ayay ka dhacday khaladaadkii ugu weynaa ee dhabarka ka jibiyey nidaamka cadaaladda. 2dii askari ee ilaalada ka ahaa ma aysan ogayn in ninkan ay ilaalinayaan uu yahay mas oo aad u xariif ah. Isagoo weli dhaawacan ayuu haddana maskaxda ku hayay sidii uu ku baxsan lahaa, isagoo magaca wiilka bariga ah uga tegaya god madow oo uusan weligiis ka soo baxayn. 2dii askari ee ilaalada ka ahaa dambiilahan waxay u haysteen inuu weli miir la'aan yahay oo uu qaliinadii ka soo kabanayo. Laakiin xaaladdu si lama filaan ah ayay isu beddeshay. Waxaa albaabka qolka timid gabadh dhalinyaro ah oo indhaheeda ilmo ka qubanayso. Waxay askartii u sheegtay iyadoo ooyeysa, fadlan, anigu waxaan ahay xaaskiisa. Waxaan rabaa inaan galo oo aan arko ninkayga xaaladiisa. Gabadhan waxay ahayd mid jilitaan heer sare ah samaynaysa. Waxay u muujisay askartii kalgacal iyo murugo xaddaaf ah, iyadoo samaynaysa drama. Askartii oo u naxay oohinteeda iyo dhibka ka muuqda, ayaa u oggolaaday inay gasho. Waxay ku yidhaahdeen, haye, gal oo soo arko. Laakiin ma aysan ogayn in gabadhani aysan ahayn xaaska qofka bariga ah ee magaciisu ku qornaa baasaboorka. Waxay ahayd saaxiibadii Affan, waxayna u timid hal ujeedo oo qura, inay ka caawiso baxsashada. Halkaas waxaa ka dhacay dayacaad weyn. Mid ka mid ah 2dii askari ee ilaalada ahaa ayaa yidhi, anigu waxaan aadayaa masjidka si aan u soo tukado, isagoo ka faa'iidaysanaya fursadda. Askarigii labaadna, isagoon dareensanayn khatarta, wuxuu u weecday dhinac si uu taleefankiisa ugu mashquulo. Wakhtigaas ayay 2dii askari ku mashquuleen hawlo kale. Qolkiina waxaa ku dhex hartay gabadhii sheegatay inay xaaskiisa tahay. Laakiin xaqiiqadu waxay ahayd mid naxdin leh. Gabadhani ma ahayn xaaskiisa, mana ahayn qof ka fog dembiga. Waxay ahayd isla gabadhii uu gurigooda ugu galay markii hore ee walaalaheed ay Affan burburiyeen. Waxay u timid inay ka abaalguddo jacaylkii ay u haysay, uuna u galay khatartaas weyn. Halka ay askartu u haysteen inay tahay xaas murugaysan, waxay dhab ahaantii ahayd qof u timid inay fuliso qorshe baxsasho oo aad u xariifnimo badan. Isla markii ay fursadda heshay, waxay bilowday inay ka fujiso dhuumaha iyo qalabka caafimaadka ee ku xidhnaa Affan, si ay bananka ugu saarto intaan xabsiga loo taxaabin. Runtii qorshihii waa guulaystay. Gabadhii waxay ku guulaysatay inay dambiilihii ka bixiso isbitaalka iyadoo askartu ay midna tukanayo, midna taleefan ku mashquulsan yahay. Waxay bixisay ninkii oo weli nabaradii qaliinka ka muuqdaan, waxayna saartay tagsi, halkaasayna ku baxsadeen. Booliskii markii ay soo laabteen, waxay heleen sariirtii oo maran. 2dii askari ee ilaalada ahaa dabcan ciqaabtooda way la kulmeen dayacaadaas awgeed. Laakiin halkan eeg naxdinta, gabadhii ninkan baxsatay, waxay ahayd isla gabadhii uu gurigooda ugu galay. Waxay u muuqatay inay dhab ahaan u jeceshahay ninkan dambiilaha ah. Gabadhii waa la qabtay kadib, waxaana lagu eedeeyey inay dambiile baxsatay, iyadoo lagu xukumay 3 bilood oo xabsi ah. Laakiin waxaa dhibka ugu weyn reebay hal shay, baasaboorkii. Maadaama uu Affan baxsaday isagoo dhaawacan, wuxuu isbitaalka kaga tegey baasaboorkii uu hore u soo xaday, baasaboorkii wiilka arooska ahaa ee sawirka Affan lagu dhejiyey. Baasaboorkalkaas ayuu booliiska gacanta u galay, isagoo noqday dembigii rasmiga ahaa ee lagu xukumay wiilka bariga ahaa. Baasaboorkii uu Affan kaga tegey isbitaalka wuxuu ahaa mid sax ah oo dhinac kasta ka dhammaystiran, marka laga reebo hal shay, sawirka oo la beddelay. Boolisku uma ay kuurgelin in sawirka la farsameeyey, waxayna si toos ah u qaateen xogta magaca ee wiilka arooska ahaa. Maadaama uu dambiilihii baxsaday isagoo gacanta lagu hayo, sharcigu wuu ku adkaaday. Dembigii u dhaca guriga ee 1 sano ahaa, waxaa lagu daray baxsasho kadib qabasho, waxaana laga dhigay 2 sano. Markii lagu daray 5tii sano ee isticmaalka iyo haysashada daroogada, wadarta xukunku wuxuu noqday 7 sano oo xadhig ah.
xukunkaas wuxuu nidaamka dowladda sistemka ku jiray isagoo ku qoran magaca wiilkan bariga ah ee miskiinka ah 4 casho uun ka hor arooskiisii weynaa isagoo magaalada bayaan dhex lugaynaya lana socday seedigiisa ayaa waxaa lagu istaajiyey barkontarool oo boolisku leeyihiin markii nambarkiisii aqoonsiga la geliyey qalabka naxdin waxaa soo baxay in ninkani uu yahay dembiile baxsad ah oo lagu leeyahay 7 sano oo xabsi ah halkaasayna ka bilaabatay habeenkii madow ee nolosha wiilkaas ka duntay wiilka miskiinka ah xaqiiqdii tani waxay u ahayd sidii riyo oo kale ma ahayn xaqiiqo ee waxay u ahayd riyo in si kidis ah wax kasta loo ogaado 7 sano ma uusan awoodin inuu fariintiisa gaadhsiiyo qofna laakiin si lama filaan ah ayaa wax kasta loo ogaaday kiiskiina xal ayaa loo helay waxaa dabcan dacwad lagu furay dembiilihii dhabta ahaa oo lagu eedeeyey isdabamarin waxaana lagu xukumay 5 sano oo eedda isdabamarinta ah iyo inuu qaatay baasaboorka Kuwait taas oo sababtay inuu xabsiga galo sidoo kale waxaa lagu daray 5 sano oo kale oo ah isticmaalka maandooriyaha iyo 2 sano oo ah baxsashadii kadib markii gacanta lagu dhigay laakiin su'aashu waxay tahay ma la qabtay dembiilihii dhabta ahaa mise maya waxaan maqlay in la qabtay muddo sannad ama 2 sano kadib dhacdada laakiin wiilkan miskiinka ah noloshiisii waa ay burburtay xilligaas wuxuu ahaa arday arooska uu isku diyaarinayana wuu baaqday wuuna fashilmay kiiskii lagu soo dhisay beenta iyo gardarrada waana wax laga xumaado saaxiibayaal waxaan rabaa inaan fariin u diro nin kasta oo ka tirsan raga amniga waa dhab in dembiilaha sidii caadada u ahayd uu qof kasta kuu imaanayo isagoo leh anigu bari baan ahay waan ogahay taas laakiin adinku ma lihidin awoodda nolosha iyo dhimashada adigu waxaad tahay nin fuliya amarada waxaad haysataa amar ah inaad ninkan xidho laakiin taasi kama dhigna inaad hoosaysiiso ama aad dhib u geysato wiilkii ayaa markii dambe dacwad ku furay wasaaradda arrimaha gudaha si uu xaqiisa u raadsado wiilka noloshiisii waxay u burburtay si dhab ah dhanka bulshada dhanka nafsadda iyo dhanka dhaqaalaha markii uu soo baxay waxaa lagu lahaa deymo wuxuu horay u qaatay dayn bangi sidoo kale wuxuu qaatay baabuur uu lacagtiisa qayb u bixinayay balse ay ka dhaafeen xilligii lacag bixinta bangigii ayaa dacwad ku soo oogay isagoo dalbanaya in gacanta lagu soo dhigo shirkaddii baabuurkana waxay ku soo oogtay dacwad iyo amar ah in la soo qabto mushaharkiisii wuu istaagay dunidiisiina way burburtay wuxuu dacwad ka furay wasaaradda arrimaha gudaha waana uu ku guulaystay garsoorihiina wuxuu ugu xukumay lacag gaadhaysa qiyaastii 300 oo kun oo diinaarka Kuwait ah ama 250 kun oo diinaarka Kuwait ah laakiin nasiib darro waxaan maqlay markii dambe in wasaaradda arrimaha gudaha ay racfaan ka qaadatay xukunkii taas oo ka dhigan inaysan ku qanacsanayn xukunka sidii iyagoo leh maya lacagtan aad ayay ugu badan tahay isaga run ahaantii tani waa wax yar xataa haddii aad siiso malaayiin ma beddeli karto maalin kaliya oo noloshiisa ka mid ah oo aad khalad kaga lumiseen waxay u dhowayd ilaah baa mahad leh haddii uusan gudaha xabsiga ugu dhimanin naxdin iyo cadho laakiin rabbigii caalamka wuxuu siiyey khibraddan si ay dadka kale wax uga bartaan raga amniguna ay uga bartaan khaladaadka askartii ilaalada ahayd sidee bay u dhaqmeen sidee bay u dhici kartaa in midna uu salaad aado midka kalena uu taleefankiisa ku mashquulo oo uu wax ku qoro adigoo goobtaada taagan tukan kara adiga oo waajibaad ciidan ku jira sidee ayaad uga tegaysaa dembiile lagugu aaminay marka si aan hadalka ugu dheerayn sheekadii halkan ayay ku dhammaatay waxaan ilaah uga baryayaa inuu mustaqbalka ugu beddelo wax khayr qaba ilaah ha u barakeeyo carruurtiisa reerkiisana ha u daayo nolol farxad lehna ha ugu deeqo khaladaadkan oo kalena ha ka fogeeyo ilaahay ha idinka badbaadiyo khaladaadka bini'aadanka halkan ayay inoogu dhammaatay sheekadii dheerayd ha iloobina inaad like saartaan muuqaalka sabiskarayb na dhahdaan janaalka si aad u heshaan sheekooyin kale oo xiiso leh nabadgelyo